maxamed xaashi cabdi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa kormeer ku tegay gaaska dhaankaroone oo tababar uga soconayo ciidamo ka tirsan xoogga dalka gaar ahaana qaybta 12aad waxaana socdaalka ku wehelinaya mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo saraakiil ka socota gaaska madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa u koorgalaya xaaladda ciidamada iyo qaabka u soconaya tababarkooda iyadoona halkaasi ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Gulnasoor ee gobolka Galgaduud gaashaanle sare Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciro oo ah amaanduulaha qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in ciidamadan tababarka u soconaya ay ku dhow yihiin ilaa 300 oo askari kamida ururada 45aad 44aad iyo 46aad waxaan halkan ku siinay tiradoodu waxay ahaayeen 734 hadda halkan waxaanu ku soo xareynay 301 askari oo 251 askari ay halkan toos uga tirsan tahay soddonna koorsan u jirna madaxweyne oo muqdisho ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi cabdi oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ciidamadan marka ay soo dhammaystaan tababarkooda ay xoojin doonaan kana qayb qaadan doonaan amniga deegaanada dowlad goboleedka galmudug sida aad la socotaan deegaanada galmudug deegaano badan oo ka mid ah waxaa gacanta ku haya cadowga oo nabadiidka ah waxaa loo baahan yahay in gacan bir lagu qabto deegaano badan oo ka mid ah weli waxaa ka jira amni darro iyo maaragtay waxyaabo oo falalka amniga lid ku ah waxaa loo baahan yahay gacan bir lagu qabto deegaano badan oo ka mid ah waxaa jooga ururo kale waxaa loo baahan yahay in ayagana sidoo kale gacan bir lagu qabto waxaas oo dhan dadka ay sugayaan oo doonayaan inay wax ka qabtaan ama wax u taraan waa idinka waay waxaa marka la idinka rabaa inaad koow idinkiisa aamintaan laba inaad idinka maaragtay muxuu ahaa isjeclaataan saddex inaad walaalitiin ogaataan sababtoo ah meeshan cidlada u jeedaan oo maaragtay gaaskan hadda uu ku yaalo intaasi kadib ayaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug waxa uu kulamo kala duwan u la qaatay saraakiisha xukuumaysa gaaska dhaankaroone isagoona kala hadlay sidii ciidamada loo sii lahaa tababar wanaagsan wuxuuna dib ugu soo laabtay magaalada Cadaado oo xarun ku meel gaar ah maamulka galmudug maxamed maxamuud owaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado